بسم الله الرحمن الرحيم حرunta cilmi baadhista aqoonta dhaqanka ee carre edeg بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داودياشيدا qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada nagala socdo ku soo dhawaada barnaamijkeeni hidde iyo hal xidhaale oo arrimihii hore uun kulay lamida oo dhinaca hidaha ah waxaan ku soo qaadanaynaa maanta bal Soomaalidu hidihii dhinaca maxaan raadayay dhirta iyo daaweynta waxay u isticmaali jirtay Soomaalidu waxay daaweynta u isticmaali jirtay maxay tahay maanta waxa arintaasi inooga warrami doona oo isagu ku sameeyay research Mustafa Sheekh Abdullaahi Warsame oo loo yaqaan Mustafa Saalax oo isla markaana ah gudoomiyaha horumarinta aqoonta dhaqanka Mustafa wuxuu research ka sameeyay fields badan oo arintaasi ku tacalluqa waxaan doonaynaa bal maanta inuu inooga warramo taariikhdii hore ee Soomaalida iyo wixii ay soo weyn jirtay anu imka markaan buuga qorayay ujeedadeedu waxay haydo kaliya in la soo ururiyo macluumaadka bal hada wixii haray aan soo ururiyo baa dadkii qasbu fikri wax lagu sameeyay weyn qof waliba dawadii ahweeyay ama geedkii ahweeyay iyo qaabkii loo isticmaalayay ayuu ku sheegaya hadduu qayb ku sheego geedka uu ku sheego magaciisa geedka maxidka laga isticmaalaya mise caleenta laga isticmaalaya kuma sheegayo waayo waxa soo baxay waxyaalo badan oo gumaysiga deegaanka tagay baa jira oo oranayo qasbu fikri ahaan oo kale oranaya drugska ayaa la isticmaalaa dawada dabiiciga laga isticmaalo 95% na dhirta drugska dhirta dawooyinka drugska synthetic ay rahdaan wax laga sameeyaa dhirta waa gartay dhulkeenuna waxa ay rahdaan ilaa marka taariikhda hore faraacinta adeegto sax dhirtii ugu daawada badnayd dhulka ay ka baxay weeyaan waa gartay deegaankeena ku nool Soomaalidu waqtigii boot ay oran jireen ka soo qaad oo meelaha ilaa 5,000 oo sano meelahaasi oo kale hadaynu badino laga soo bilaabo 500 oo sano imka waqti laga joogo waqtigii ifaad waa gartay oo kale loo oran jiray iyo waqtigii ka sokeeyay adal loo oran jiray waqtigii Axmed Guray boqortooyinkaasi ilaa dhulkeena deegaankeena dadku sida ay ahaayeen iyo qaabka ay u isticmaali jireen wixii xanuuna iyo wixii cream ay marsanayaan iyo wixii isqurxina waxay ahaydun dhirta iyo xoolaha wixii maxsuul ka soo baxa shay kaliya oo inooga iman jiray dibadda ma jirin imka soo ilaa fildicinkii baa imaada Soomaa